haddaba waxaad la socotaan 2 maalin ka hor inaan shacabka Soomaaliyeed u sheegnay in cudurkan uu gacanta ka sii baxayo African ee runtii dhibaato ballaaran ka taagan tahay cudurka loo yaqaan busbus daanyarka ama daanyar busbuska ama mpox loo yaqaan. haddaba cudurka maanta WHO ayaa waxay xaqiijisay in xaalad degdeg ah ay gashay caalamka. sidoo kale wadamada Yurub ayaa maanta waxa la diiwaan galiyay dadkii ugu horeysay. Sweden ayaa waxay diiwaan galisay qof muwaadinkooda ah oo runtii cudurkaasi la tacaalaya. haddaba shacabka Soomaaliyeed waa inay ka feejignaadaan, waxaana la sheegayaa in cudurkan uu leeyahay astaamo gaar ah. astaamahaasi oo ah inay qandho ku qabanayso, nabro yar ka soo baxaya, kadibna nabrahaasi ay weynaanayaan, qolfo yeelanayaan, qolfahaasna ay ka dhici doonaan, balse uu leeyahay xanuun. way fududahay sida la soo qaadsiyo. cudurka ayaa wuxuu yahay cudur runtii fudud. haddii aad qof dharkaaga la xirato oo cudurkaas qabo waad qaadaysaa. haddii aad qof cudurkaas qaba la seexato waad qaadaysaa. haddii aad cudur qof qabo dhacaankiisa jirkaaga soo gaaro waad qaadaysaa. marka runtii waa inaad ka taxadartaan. sidoo kalena waxaad halkan kala socon doontaan wararka dheeri ah ee ku soo darsama xaaladan degdega ee caalamka loo galiyay dhinaca mpox. inta ayaad kala soconaysaan. nagu soo biira, follow gareeya, gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed dhammaanba goob walbood ka joogta caalamka.